وعن أو wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Wadaagsin Production oo aad alaaba ka daawataan warbixinada dhaqaalaha siyaasadda dhacdooyinka caalamka iyo guud ahaan caalamka gaar ahaan Soomaaliya waxaynu ku eegaynaa warbixinteena Field Marshal Khalifa Haftar oo ah hogaamiyaha xoogagga bariga Liibiya ayaa soo dhaweeyay fiidnimadii Khamiista baaqi Ankara iyo Moscow ee Arbacadii ee xabad joojinta laakiin waxa uu xaqiijiyay sii socoshada howlgallada military ee ka dhanka ah xoogagga daacadda oo dawladda Liibiya kadib heshiisiinta qaran ee aqoonsan tahay qaramada midoobay sida lagu sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray afhayeenkiisu Ahmed Al-Mismari Field Marshal Haftar wuxuu ku dhawaaqay dadaalka ciidamada qalabka sida ee dagaalku ay kula jiraan kooxaha argagixisada ah ee lagu qeexay qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay oo lagu cadeeyay khibrad ahaan waxay cadeeyeen inaysan jirin hab lagu dhiso dawlad rayid ah marka laga reebo gabi ahaanba in meesha laga saaray maadaama kooxahan ay qabsadeen caasimadda Tripoli waxay taageero ka helayaan wadamada iyo dawladada qaarkood Haftar oo isagu madax u ah ciidamada qalabka sida ee Liibiya taageerona ka hela Masar iyo Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay dagaal tan iyo bilowgii bishii Abriil si loo xakameeyo caasimadda Liibiya ee Tripoli oo ah xarunta ay ku boobeen xisaabiyaha qaranka ee uu madax ka yahay Faisal Al-Siraji habeennimadii Arbacada xukuumadda Liibiya heshiiska guud ahaan ayay soo dhaweysay baaqa xabad joojinta iyadoo aan la tusin inay u hoggaansami doonto iyo in kale kadib markii ay baaqan soo jeediyeen madaxweynayaasha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Ruushka Vladimir Putin danaha Ankara iyo Moscow waa ku kala duwan yihiin Liibiya iyadoo Ruushka lagu eedeeyay inuu taageerayo Field Marshal Haftar gaar ahaan iyadoo ay boqolaal ciidan ah ay Ruushka u soo direen halka Turkigu ku dhawaaqay inay ciidan u dirayaan Liibiya si ay u taageeraan ciidamada qaranka bayaankiisa ayuu Haftar wuxuu soo dhaweeyay talaabada Putin ee lagu talagalay in nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo Liibiya wuxuu ku eedeeyay wadamada qaar iyo dawladuhu inay siinayaan ciidamada saldhig kule Tripoli qalab military iyo hub kala duwan iyo sidoo kale weerarada diyaaradaha aan duuliyaha ahayn intaasina waxaa sii dheer dalalkan iyo dawladaha gaadiid badan inay u soo diraan iyagoo argagixisada keena daafaha adduunka si ay ula dagaalamaan ciidamada qalabka sida iyo dadka reer Liibiya Haftar wuxuu la jeedaa Turkiga oo uu ku eedeeyay inay u dirtay dagaalyahanada taabacsan dawladda Syria si ay uga dagaalamaan Liibiya daawadayaal intaasina waa warbixinadii aan ka helinay Liibiya iyo xaaladii ugu dambeysay ee wadankaasi intaan warbixin ka xiiso badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo